والله وسكون حي how do you say ku aragto kulaha waa dareemaan ku dhaynay daaranta waa fiiriyay okay woodan sidii abu hore u qaadaan dhahno ayada dhan qolkaan kaamiradiisa taal waa baqaayay marka aniga usually wallahi ma sheegayo been dabagaab oo ilaa jilbaha joogo waxyaalihii uu soo diray mujada arono ina si fiican u arki kartiin qoraaladiisii waay waxyaaluhu ii soo diray asaga oo leh maxaa dhahaa abaayo adduunka ma arkin wax ka qurux badan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكو سو نقدنaysan oo markale video cusub maanta waxaan ka hadli doonaa waxa jiray gabdho social media isku haystay taasoo ah gabdho cayo xun iyo waxyaabo xun social media isugu soo gudbinaya kuwaasoo ahaa gabdho caana oo jilaaya laha waxa jirtay gabadhii kamid ah oo soo dubtay muuqaalkaas ay leedahay laba wajiilaha dadka isku guba wajigiisa saxda ah marka bal cidii waxaan ka dambeysay ee dadkan isku gubtay ee dabkan shiday ay tirwaan ogay waan sheegaya bal marka muuqaalkan aan wada daawano. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaashay alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta in ay ka hadasho arrin la yaab leh oo maalmahan dhex socotay baraha bulshada xaqiiqdana ay tahay nin cameraman ah inuu isku diray ummadii oo dhan ama uu laaluush siiyay gabdho oo gabar kale ay weerar ku qaadeen. ninkaas waa nin aad taqaaniin ama filimada iyo waxa uu duubo la fiirsado marka ninkaas weyn waxay nagu tiri gabdhihii social media isku leenay ee isdagaalayay waxa isku diray bay tiri nin cameraman ah oo aad wada taqaanaan bal ninka iyo wuxuu isku diray sababta iyo wuxuu ka damacsanaa balaahi noo sii wado uu ku dhaqaaqay arrin ceeb ah oo laga xishoodo qof weyn oo soo dhaqaaqin arrintaasna waxaa kamid ah in uu gurigiisa uga duubay gabdhahan video gurigiisa aniga waa aqaana filmo waa ku jirna gurigiisa waa la yaqaana meesha waxaan ugu tiri gabdhahan ayuu kaga duubay gurigiisa video xasbunallah balano soo dambe oo baaga ah inuu intuu gabdhihii isku shiidiyay uu dhahay gabadhan haleecaayo oo asagana ka duubay codkiisa waa arki doontiin codka iyo wuxuu ku duubay waa arki doontiin insha Allah wayda maqashiinaya gabdhahaas meesha ay fadhiyaan waa arki doontaan waa kaas mujeda meeshaas ay ku duubayaan gabdhahan waxa waaye gurigiisa gudihiisa qofka duubayana waa asaga wuxuuna u duubaya waa gabar aad taqaaniin oo weyn oo fanaanad ah in la caayo ama la aflagaadeeyo oo lagu dhaga hadlo maadaama ay ka tagtay uusan keeni karinna haddaba su-aasha meesha taagan ayaa ah maxay tahay sababta gabadhan fanaanada ay jeedo loo aflagaadeynayo ee loo caayaya waxay nagu tiri fiidiyowgan aad arkaysa ina tustay waxaa lagu duubayaa bay tiri sida gurigiisa kaasoo raba oo leh hal la caayo gabadha oo waxa laga sheego marka sababtu waxay tahay in ogaano gabar kale oo la mid ah marka sidii gabadhii uu u bahdilo ama maxaa la dhihi jiray uu u soo ceshto wuxuu sameeyay arrin ceeb ah oo gabadhiiba ay kasii fogaatay ninkii oo aysan kusoo noqosho dambe aysan lahayn arrintaasna waa arrin aan ujeediin idinka dhan social mediaha inuu gabdhahan intuu la hadlay oo gurigiisa ugu yeeray uu yiri gabadhan ha la caayo oo ilaa haddana ay gabadhii sidii cayda ugu socoto okay gabadhan gabar cayla ma aha waa gabar fanaanada waa gabar wada taqaaniin waa gabar aan wada jecelnahay anaga oo dhan gabadhaas alxamdulillah way ka xishootay afkeedana way ka xiratay waxa ay qasanayaan indhaha ka fiirsay laakiin aniga maanta waxaan rabaa inaan soo dhigo banaanka waxyaalo badan oo ninkaas uu waxaan ugu tiri gabadhii waxaas oo dhan loo geysanay ee waxa la lahaa way ka amstay horta waxa la yiri qof hadlay qof amsaabiyay intaas abi kaga badisay meeyay iyo fara badan oo laga haayo ayaa rabaa maanta inaan idin soo cadeeyo cid kalena ma aha waa aniga Naciima Cabdi Tahliil ah ayaa
arrintaas haya oo gacanteydana kusoo dayn doono. waxaa ka mid ah gabdhahan in uu maxaa dhihi jiray uu ku yiri waxaa idin tusayaa kale gurigiisa gudihiisa inuu codkiisa waa maqlaysiin mujidiino codkiisa wuxuu sameeyey meesha ugu horeyso videoga haddaa aragtin codkiisa waaye guriga lagu duubayana waa gurigiisa. marka nin rag ah ma wax uu ku dhaqaaqaa waxaas Soomaali weyne waa ujeedaane because ilaahay maxaa la dhahaa wixii la qarqariyaba waa soo baxaan al-ultimada. marka ninkan wuxuu sameyn jiray gabdhaha iyo wiilasha fanaaniinta oo dhan uu isku diri jiray maanta oo dhan laba iswadato bal asaga oo hadlaayo oo dhahayo qofkaas iyo qofkaas oo qof haysto ma arki kartiin because ummaddu isku dira wuuna cararaa waa kaasi maanta wuu u jeedaa waxa dhacaaye ha soo hadla ha dhaho waa been ma dhihi karo because ninkan farihiisa dhan waa lahaaya inuu isku dirool yahayna dadka dhan u jeedo inuu gabdhahaana ku yiri ilhaan meeshii ay maxaa dhihi jiray ku jirtay ayaa idin gelinayay ayadoo inaa hawada ka saartaan oo ka bixisaan. marka alxamdulillah gabadhan gabar baxaysa ma aha waa gabar la wada jecel yahay maxaa dhihi jiray aan maqlay ama aan ka arkay qof sabar badan ma ahane qof kale intaas lama joogin aniga one day lama joogin maalan tahay lama joogi karin. midda kale waxaa la dhahay ninkan kama hadli kartid la dhahay waa lay cagajugleeyay way laygu cagajugleeyay liin ma ka hadli kartid because waa la ogyahay inaan fara ka haayo ninkan inuu irabi jiray way wada ogyihiin ayaga dhan car ninkaas afkaaga kusoo taag waa ku dilaynaa laygugu hanjabay waxaa laygugu hanjabayaa mar walba haddii aa maxaa dhihi jiray ninkaas soo qaada hadalkiisa waa dhimanaysaa. aniga nafta ilaaha ii haayo maxaa been isugu sheegaya ana cid wax iga qaadi karto malaha afkayga anaa iskale anaa ku hadli karo anaa ku aamusi karo anaa cunto ku cuni karo anaa ku qaylin karo. marka qofna yuu isku dayin inuu aniga afkayga waxa kasoo baxaayo uu controlo because aniga qof weyna ahay ma ihi ilmo yaryar oo maxaa dhihi jiray hooyadood edbinayso naa kasta inay ii soo fafakato aniga maxaa keenay because waxay og yihiin waxa aan hayo haddaan soo dhigo in aan maxaa dhihi jiray waxyaalo badan oo ceeb badan ay soo bixi doonto iyo ninkan wajigiisa ay dadka ogaan doonaan. marka anigana ima ahaan ninkan wuxuu isku dayi jiray in uu ishu kaansado wuxuu dhihi jiray waan ku soo saarayaa maxaa dhihi jiray ummad masawirkaagan facebookii ku dhajinayaa waxaan leeyahay gabar aktarada soo baxday maxaa adiga waxaas iigu sheekeyn jiray laakiin aniga waxaan dhahay waxaasoo dhan uma baahnay ma fahmaysaa haddii in laysa soo saaro ama lasoo baxo u baahanta ani horaan u baxsanahay aniga gabar model aan ahay sida ay aragteen ama ogina ay ogtihiin in kale aniga gabar boxer aan ahay boxeran sameyn jiray waa arki doontiin biladahayga waa idin keeni doonaa waa idin tusi doonaa aniga gabar u baahan in la soo saaro ama u baahneed maxaa dhihi jiray in filin ay jisho ma ahayn. filinka kaafi kala dheerina waxa i keenay mooye wuxuu ii keenay wuxuu yiri abaayo ani mooye waa isnaqaanay markaan sameynaa modelka aan bartay mooye waxaan ku bartay waxaan u baahnaa vote in lay vote gareeyo votekii mooye iga caawiyey saasaan isku baranay wiil walaalkay anoo aqoonin ii istaagu ahaa markaan modelka sameynayay oo masawiradeydii iyo waxayga dadka u diri jiray oo dhihi jiray gabadhan Soomaalida ah loo vote gareeyo ilaa haddana wiilkan walaalkay ah sidii ii caawiya oo maxaa dhihi jiray u jecel yahay mar walba horumarkayga bis mooye wuxuu dhahay abaayay waxaa ka maqan filinkan gabar aan filna matalo ii sheegay gabaraana ka maqan minyara ah qof kale oo yar oo noo matali karo adi ahayn ma jiro ma soo geli kartaa filinka sidaasaan ku galay filinka markaan galay ninkan uu iga helay wuxuu yiri weligii ma arkin qof sida adi wax u matalayso u matalo ama maxaa dhihi jiray ka qurux badan ama gabar yar oo adiga camal ah oo filimada noo jisho waxaan raadinayna marka walaashay soo dhawow aleedahay
aniga waxaan u qaatay walaaltinimo in laysoo dhaweeyey iyo maxaa la dhahaa qof walaalka markaas bartaan wuu kusoo dhaweynaya marka aniga kadib waxaa laygu sheekeeyey lay dhahay mooye iska ilaali mooyo dadka lama shaqeyn karaan mooyo min fiican ma aha aniga inta igu taqaana ani mooyo igu barata mooyo ay keenay meeshaane bis adi kadib waxaan ka gaagaabsaday waxaan ku dhahay walaalkee ani meeshan jilitaan u imaade ruufiyaanimo ma u baahni aan jilno aan ku kala tagno wixii waroo kale ani uma baahni bis ninkan wuxuu ka arkay facebookgayga masawir aniga oo qabo masawir oo dhar askari aan qabo wuxuu sameeyey oradu isku taabtay maalmo kadib filimka intaan sameynaynay wuxuu sameeyey wuxuu soo gatay asagana maxaa la dhahaa waa idin tusi doonaa dharkii askartuu soo gatay wuu soo gashtay wuxuu yiri sideen ku ah dharka askarta qoraalkiisii iyo wixiisii dhan aan inta idinkugu hayaa qoraalkan aynu isku dayi doonaa inaan akhrino intaynu ka aragno wuxuu yidhi kkk aniga weeye boqorad naciima ka waran wuu ku nuurayaa booliska abay qoraaladiisii waaye iyo waxyaaluhu iisoo diray asaga oo leh maxaa la dhahaa abaayo adduunka ma arkin wax kaa qurux badan kooxdeena gabadha ugu qurux badan oo ugu yar wallaahi iyo aamin adiga waaye dharka askarta uu soo gashtay wuxuu yiri aniga fiiriya aniga waaye boqorad naciimo ka waran dharkan booliiska aan soo gatay ma fahamtay so waxyaalahaas iisoo diri jiray qof markuu ku rabana waa og tahay labiskiisuu ku tutusayaa waxyaalaha uu gashtuu ku tusayaa ereyo badan aan ka hayaa iyo qoraalo badan isagoo u dhahayo film romantigaan rabnaa inaan wada jilno waxaa kaloo jirto in uu maxaa dhihi jiray aniga naciimo ahaan uu dhihi jiray ma lagu quuro inaad ku socotid maxaa la dhahaa dhulka horta waa waxaa jirtaa qofkii dan laga leeyahay ee la rabo ayaa dee lagu marmaraateeyo ma garanaysaayay hadda meel looga soo wareegaa marka adigu waxay ahayd un damacu kaa lahaa iyo qof dee uu jeclaan baa tahay maaha bal markaa waxaa keenay cadaawadda weli maanaa fahmin iyo dagaalka dumarkan isku laynaya iyo waxan malaa xagga dambe kaga sheegi doontaa noo soo 5 daqiiqo oo socod ah anoo u socon karo ayaa gaar laysoo diri jiray maxaa dhihi jiray waxaa la dhihi jiray oo kale walaashay waxa adduunka ka jeceshahay aniga kuu quuro anaa kuu sameynayo just ii sheego haddii adiga camal aan ku heli lahaa nolosheedu way isbedeli lahayd waxaa noqon lahaa nin raga maxaa ka wadaan gudha nin ragaada waaba tahay micnaha waxaan ka wadaa sida qurux badan tahay ragnimadeeda ii soo celin lahayd haddii aan maxaa la dhahaa ku heli lahaa أنا حنقول excuse me محاكا هذا سنين قبا بتهاي وحقول هاي ناق واقبا لكن ناق تان ناق إيجا بإنكشتو وحقا هاي معها وحي وجوكتا غروغا أو كلية إن أي محال هاي وحلقان ما لها وحقول هاي وحلقان إدانتها وحلقان إدانتها سلاس درتين يوجوكتا هدا ما أنت أديكو كحلو naagtan dib dambe ma iigu arkaysid markaas kadib ani waxaan bilaabay inaan ka gaagaabsado filimkii markaan ka gaagaabsaday oo aan la matalayo filimka mooye qaybtii ugu dambeysay oo dharka buluuga aan qabo oo la xambaarayo wallahi inaan been sheegaynin wuxuu igu dhahay aniga way igubaysaa mooye korkaaga inuu taabto please ma ka dhaafi kartaa inuu maxaa la dhihi jiray agtaada soo istaago u sheegno waxaan ku dhahay adiga duub waxaan just duubis maxaa la dhihi jiray go-aan kale ma lihid inaa iga duubtid waxa aan rabo ma ahani adiga go-aanka ma gaari kartid nolosheeda waxa layga duubaayo iyo qofka aan la sameynayo iyo qofka aan la jelaayo sidaas darteed filimkii waxaa la bilaabay in la gebagabeeyo oo la dhaho filimka wuu dhammaan rabaa maxaa la dhahaa filimka hala dhameeya dhaqso ani filimka animaa gacanta ku haayo qofkii qoray ahaayo mooye qoray mooye la kala xiriir ani maxay igu sheegaysaa ayaan ku dhahay bis adi sidii filimkaas waa arki doontiin amiyarada ka ahay
wuxuu ahaa filinkaas in aan aniga lay furo oo asaga naagtiisa ku noqday ahayd. naagtiisa kumuusan noqon mooye markuu arkay pressure in lay saaraayo, in habrihii dhan ay kaceen oo maxaa dhihi jiray ani lay ximinaayo, wuxuu dhahay gabadhan yarta ah oo na soo dhex gashay haddaan la wanaajin anigana layma wanaajin, waana idinkaga baxayaa filinku dhaha mooye. sidaas mooye filinka wax dambe kuma duubin, anigana sidaasan kaga tegay. in yar oo ay duubteen ay soo daayeen 2 wiig kadib. markaas kadib waxaa dhacday in filinkii aniga oo lay qabo uu ku dhammaado, uu asaga just waxay naagta u noqday daasid. laakiin filinka runtiisa wuxuu ahaa in aniga lay furo oo uu naagta ku noqdo, laakiin ma dhicin. marka aniga sidaas darteed filinkii waa isaga tegay, ma dhammaystirin. haddaa maantay idahaysi Naciimo soo wada bax, waxaa haystoo dhanna tus, aniga waa idin tusi karaa. because ani waxaan aqaanaa qofka haddii laisfahmi waayo hala kala tago. filinkii halkaasaan ku dhameeyey, sidii aan ku kala tagnayna ani kama hadlin, ma iska qabsanin, waxba ma sameynin, waa iska baxay. aan iska baxo maba xumee, aniga waxaan dhex dhigay in uusan mar dambe iisoo dhawaanin. arrintaasna maalin kale idinkaga sheekeena sidaan u sameeyey haddaa rabtaa inaa ogaataan. waxaa dhacday ninkan in uu maxaa la dhihi jiray filin kala bilaabaan, maxaa la dhahaa ii sheeg Ilhaan iska qabsadaan. Ilhaan iyo ninkan kaliya isdagaalay. Ilhaan iyo ninkan kaliya isla shaqayn jiray. waxa haayo naagaha kale oo soo hadlayo oo dhahayo ninkan waa walaalkay. ayada maalin horena mid koo kale sheeganaysay oo Cabdixakiim ya maqaan maxaa la dhahaa Cabdi Samtin oo filinka nugula jiro asagana ee sheeganaysay maalin hore dhahaysay walaalkay waaye, kana walaalkeed waaye. ayada maxaa waa garaacad miya naagta naag maxaa la dhihi jiray walaal sax la dhashay male miya. so ani taas iga yaabisay oo waxaan istahay maxaa qaldan meeshan. naagta marna abgaale sheeganaysa, marna reexamare sheeganaysa, naagtan qabiilka ma dhalan miya, maxaa ka qaldan naagta intay ka imaaday. marka haddaa sheegato iska tahay oo habdo qofkii maxaa la dhihi jiray kuushubaa waxaa iska sheeganaysid way dhici kartaa. laakiin aniga alxamdulilaahi naag ma dhibaana ahay, idin kama cabsado. naag ii booteen kartana adduunkan ma saarna. qof oo maantay aniga idhihi karo afkaaga xirna hooyadiisba ma dhalay. maybe hadda kadib inuu dhalan doono, laakiin ma dhalano weli. haddii aad rabtaan inaan soo wada baxo oo aad rabtaan inaad ogaatiin wax walba oo saxa, haddaa maanta leedihiin nambarkiisa na tus oo saxa, waa idin tusaaya inuu asaga yahay waxyaalo soo diri jiray, inuu asaga yahay qofkii la sheekaysan jiray, inuu asaga yahay wixii iga daba dheeri jiray. cadadan haya idin dhageysiin karaa xitaa. so aniga ma rabin inaan maxaa la jiray soo wada baxo, laakiin hadda igu kaliftaan oo aad soo wada baxay tiraahdeen waa soo wada baxaa, aniga ma cabsado. alxamdulillahi rabbil caalamiin. waxa kaloo jirto in uu isku dayay inuu iga qaado video qarsan anoo ogeyn. waxay ahayd maalin aan duubay, maalinta dharka buluuga aan qabo filinka amiirada ahay. waa arki doontiin marka uu maxaa dhihi jiray sariirta intuu mooye qaaday saaraay iyo waxaas. markaas wuxuu isku dayay inuu video iga qaado oo ah qarsoodi, because marka intaas siinkaas yarka aan dhameynay mooye wuu degtay, hoos u degtay, ana dharka inaan badashay ahayd oo dhar kala xirto. asagana qolka hoos kusoo labisanay, ana qolka koran ku labisanay. marka kaamiradiisa meesha taagneed wuxuu yiri haye walaashii isaga bedel dharkaya inta haye. uu baxay, markuu baxay kaamirada way shidan tahay yaa weli albaab yar leedahay kaamirada inta ah wuu laabay. marka waa arki kartaa kaamirada shidantii haddii kale, haddii albaabkaas uu furan yahay, laakiin haddii la laabo waxa ma arki kartid. wuu laabay. markuu laabay waxaa dhacday ii sheeg inaa aniga waa shakiyey. marka waxaan dhahay qolkan isaga bedel lagu dhahay, qolkan kamera lagu duubayay. waxaa maqli jiray filimada hindiga iyo fiirsada aniga badanaa ama American ha noqdo. waxaan arki jiray trisho oo maxaa dhihi jiray filim qarsoodi laga duubayo waxaas.
wallaahi ma iga ahayn inaan maxaa dhihi jiray shaki qabay laakiin waxaasaan arki jiray markuu baxayaan kaamiradan furay markaa furay kaamirada way daaran tahay weli wallahi ilaaha iga sarreeyo kaamirada weli waa daaran tahay waa u yeerano abuu kaale maxaa dhacay kaamiradaada danso waa ilowdaya wallaahi isku naxay how do you say ku aragto kulahaa waa dareemaan ku dhaa inay daaranta waa fiiriyey okay wuu dansaday abuu hore u qaadaan dhehno ayada dhan qolka kaamiradiisa taal waa baqaayaayo marka aniga usually wallaahi ma sheegayo been dabagaab oo ilaa jilbaha joogo iyo garana mar walba qabaa markaan wax samaynayo gabdhahana waa la talinaya filimada duubo saas camal ha uga taxadaraan jirkooda marna ragisiin iyo kastuumo waxba maxaa la jiraa isaga bedelin qol aada ogeyn waxa ku xiran bis intaas aniga qabay anoo intaas qaba ayaa waxaan kasii taxadaray intaas xitaa in la helo aan diiday waa asturanahay weli maqaawani bis waxaa dhacday markaan waxaas arkay waxaan sii sameeyey feejignaan aada u sii adag oo maxaa la dhihi jiray in aan filin ama video layga sameynin aniga oo qaawan ninkan markuu wax iga qaadi waayey ayuu pressure wuxuu isaaray maxaa la dhihi jiray filin waxda mala duubaayo iyo saa ma aha iyo kan ma aha iyo aniga waxaan ku dhahay baay saaxiib nagu kala wad ani filin soomaali filimaba u aqaanay weligay model iyo waxaan sameynayay iyo boxing iyo waxyaala gym iyo waxyaalahaas aan ku mashquulsanaa waxaan ani waxba iima aha laakiin waxa isoo geliyey mooye maadaama uu yahay wiil walaalkay ah oo isoo dhaweeyey inaan u buuxiyo booska bannaan intaas aan isoo geliyey marka anigu aan waxaan ku gaaray haddii waxaa la dhihi jiray ninkan wax u duubaayo markuu edit gareynaya inaan la joogo oo fiiriyo haddii wax qaldan oo duubtay ama wax kale dhowr jeer waa la sameeyey editorka filimka waa la sameyn jiray kadib maxaa la dhahaa markuu waayey fursad igu qabto igu soo galo ninkan wuxuu go-aan ku gaaray inuu dhaho naciima maxaa la dhihi jiray filimka waa dhammaaday hadduu dhammaaday baahi nugu kala wadaan ku dhah haya galaani sidii uga soo baxay shuuq dambana maka daba dhihin mana ka daba wactamin mana ka daba hadlin ilaa hadda sidaan ku wada maqanahay so ninkan maxaa la dhahaa wuxuu ku raadsadaa wax ama maxaa la dhahaa ii sheeg uu kusoo caanbaxay inuu ka shaqaysto fanaaniinta hoostooda uu maxaa la dhihi jiray ka quuto uu haddana isku diro waaba dadkan ilaahay risaqa dhan aaba helaysid ilaaha dadkan uu kaa siiyey ma ummadda ammaan siisid waaba ummadda a ku nooshahay ma faraha ka qaadi gaajada dhashay marka wuxuu sameeyey hadda naagihii uu watay iyo asagii iyo baqbaq meelaha leh waa u jeedaa laakiin cid wax laga qaadi kara ma jirto soo wada baxa ana waa joogaa bannaanka asxaabta kheyr in kala tagay horta wax lala yaabo markaanu muuqaalkan daawaday iyo sidii gabdhuhu isku haysaysteen wallahi horta waa laba aad iyo aad u kala fog meeshana waxa ka socotay waxyaabo aad iyo aad u xun balse ma qurux badna inaan muuqaal ka soo qaato balse haddana qof ayaa 3 jeer ama 2 jeer meelahaas uu soo diray aniga oo tixgelinaya qofkaas 2 jeer ama 3 jeer meelahaas inuu ii soo diray ayaa muuqaalkan ku soo qaatay ma rabin inaan soo qaato muuqaalkan ama aan ka hadlo horena ugumaan hadal balse waxaan tixgelinaya qofka intaan kaga tagnaa muuqaalkan haddii aad muuqaalka cusub tahay ama YouTube channel ku cusub tahay waxa ka codsan inaad subscribe saarto like na saarto aad iyo aad ugu mahadsan tahay ka tagay sida iyo amaana